steerinka. Waa ay fududahay in gaariga steerinkiisa aad jaleeciso, laakiin waxaa lagaa doonayaa shuruuc badan, sida gaariga in aad si wanaagsan gooladaha midigta iyo bidixda u geliso. haddaba si aad u barato waxaad u baahan tahay waxa loo yaqaano riixid ama soo jeedid, ama luqadda Englishka waxa lagu yiraahdaa pull and push. sida caadiga ah inaad hagto steerinka waa wax aad u fudud. waa inaad maskaxdaada ku haysaa in aan lagaa doonayn oo kaliya in gacmahaaga aad wareejiso, laakiin lagaa doonayo indhahaaga sidaasi oo kale inaad wareejiso ay taxaddar muujiyaan. waa inaad iska fiirisaa halka aad doonayso inaad gaariga u leexiso nabadgelyadeeda. eegista dhinacyada waa mid muhiim ah, sidaasi oo kalena waxay kaa caawin kartaa nabadgelyada waddada. haddii aadan steerinka jileecinayn, waa inay gacantaada ku dhegan yihiin halka loo yaqaano 10 iyo 2, waa halka saacadda ay ku abbaaran tahay. waxayna taasi kuu suurtagelin kartaa inaad gaariga si buuxda aad u maamusho ama aad u xijiso. qaabka riixidda iyo soo jiididda steerinka waa inay mar walba gacantaada ay fududdahay. marna steerinka ha u ogolaanin inuu meel kale kaaga leexdo. marka uu steerinka u dhammaado halka loo yaqaano full lock, waa in aad midigta ama bidixda midka aad doonaysa u soo celisaa gaariga. haddaba riixidda iyo soo jiidista steerinka waa mid aad ku tababaran karto, waxaana habboon inaad ku tababarato meelo aad u deggan oo gawaari badan aysan oolin, isla markaana nabadgelyadeeda ay sugan tahay. marka aad doonayso inaad dhanka bidix u soo jileeciso steerinka, gacantaada bidix halka hoose ku sii jiid steerinka, midda midigna kor ugu riixi gacantaada. gacmahaaga waa inay hawsha ku kala wareegaan saacadda halkay ku abbaaran tahay 6 iyo 12, waxaana hawshaasi wadaysaa inta uu gaariga steerinkiisa iska soo xirayo. inaad dhanka midig u jeediso steerinka, waxaad gacantaada midig halka hoose ugu sii jiidaysaa steerinka, adigoo gacanta bidixna steerinka ku sii riixaya. gacantaada midig ku soo jiid steerinka mar waliba. waa inaad wada jileecisaa steerinka ilaa uu steerinka iska soo xiro. caawiyaha maamulka. waxaa muhiim ah inaad barato caawiyaasha gaariga iyo waxay qabtaan inta aadan gaariga kaxayn. waxaa laga yaabaa inaan horay kuugu soo sharaxnay qaar ka mid ah casharadeenii hore. hoonka baabuurka. hoonka ama dhawaqa gaariga sida caadiga ah wuxuu inta badan ku yaallaa bartamaha steerinka ama gacanta yar ee ka dambaysa steerinka dhanka bidix. leerarka baabuurka. nalalka ama leerarka waxaa laga hagaa gacanta yar ama tusaha ka sareeya steerinka. sidaasi oo kale waxa uu si gaar ah mar kale kaaga soo muuqan karaa, wuxuuna leeyahay 3 nuuc oo leerar ah. leerarka hore ee gaariga waxaad u isticmaali kartaa marka aad gaariga kala baxayso baarkinka. leerarka iftiinkooda uu dheer yahay. leerarka uu iftiinkooda u dheer yahay waxaa loo isticmaalaa marka ay yar tahay inaad aragto muuqaalka kaa horeeya sida gudcurka oo kale. waxaa sidaasi oo kale jira leerar iftiinkoodu aad u sareeyo, waxaana loo isticmaalaa marka aad marayso gudcurka ama mugdiga, waana inaad hubtaa waddadaasi in gaari aysan kaaga hor imaanayn. marna ha isku isticmaalin leerarka loo yaqaano full beam highlightska xilliga ay ceeryaamaha jiraan, waxayna wax u dhimi kartaa muuqaalada dadka kaa hor imaanaya ee gaariga kaxaynaya. haddii aad xagga hore u riixdo tusaha, waxaa kuu shidmaya leerka guud ee gaariga oo fuul ah. marka uu leerkaasi kuu shidan yahayna, waxaa hortaada dashboardka kaaga soo muuqan doona leerka buluugga ah. haddii aad tusaha dhankaaga u soo dhaqaajiso marar badan, leerarka waa ay biligleynayaan. sidaasi oo kale leerarka dambe waa ay soo muuqanayaan. leerka ceeryaamaha. leerarkani waxaad isticmaali kartaa markii ay aad u yar tahay inaad wax ka aragto in ka yar 100 mitir. leerarka ceeryaamaha inta badan wax ma taraan haddii aysan ku daarnayn leerarka loo yaqaano dip headlights ama kuwa hoose. marka leerka ceeryaamaha ama fog lightska uu ku daaran yahay, waxaa kuu soo muuqanaya hal leer oo xagga dambe ah. sidaasi oo kale dashboardka hortaada waxaa kaaga soo muuqanaya leerar cagaaran ama aqdar ah iyo weliba leer jaallo ah ama huruudi ah. leerarka khatarta ama halista.
badhanka leerka khatarta ama hasartiga waa mid casaan ah oo saddexagal u samaysan. leerkani waxaa loo isticmaalaa marka ay gaariga wax cilad ah ku timaado si uu u tusiyo dadka waddada isticmaalaya in gaariga cilad ay ku jirto. marna lama ogola inaad isticmaasho adiga oo meel baarkin ah ku jira ama howl qabsanaya. waxaad se isticmaali kartaa adigoo waddada saaran markay hortaada kaaga soo muuqato wax khatar ah si aad u wargeliso gawaarida kaa dambeeya. marka aad taabato badhanka halka dambe ee gaariga sidaasi ayay leerarkiisa u biligleynayaan. masaxidda muraayadda hore iyo midda dambe. tusaha ka dambeeya isteerinka dhanka midig ayaa ka heli kartaa meelaha laga dhaqo muraayadaha hore iyo midda dambe. wuxuuna muuqaalkiisi u egyahay sidaani, wuxuuna wax u dhaqaa marka aad halka kore ama halka hoose u riixdo. markaad hore u riixdo waxaa shaqaynaya masaxayaasha gaariga qaybta hore. mar kale haddii aad riixdo wuxuu u shaqaynayaa si noormal ah. haddii aad mar kale oo saddexaad si fiican u riixdo masaxayaasha muraayadda si xawli ah ayay u shaqaynayaan. haddii aad muraayadaha dhaqayso waa inaad dhankaaga u soo jiidaa hagaha. haddii aad horey u riixdana waxaa shaqaynayaa biyaha dambe ee muraayadda haddiiba uu gaarigaaga leeyahay nidaamkaasi. marwaaxadda iyo kulayliyaha. dhammaan gawaarida oo dhan waa ay ka siman yihiin marwaaxadda iyo kulayliyaha iyagoo si fiican kaaga soo muuqan doona hortaada. iska hubi kulayliyaha ama hiitarka iyo marwaaxadda inay ku shidan yihiin, waana inaad badhanka xijisaa dhanka muraayadda hore. baabuurta qaar ayaa leh kulayliyaha muraayadda dambe. gawaarida qaarna waxa ay leeyihiin kulayliye muraayadda hore ah. dashboardka. dashboardka wuxuu leeyahay leerar badan oo ku tusinaya digniino badan. haddii aad aragto leerarkani oo kuu soo baxay adigoo gaariga kaxaynaya waa in aad istaajisaa gaariga isla markaana aad fiirisaa buugga gaariga si aad u hesho waxa dhibkani uu yahay, haddii aad gaariga kaxayn karto iyo haddii kaleba. waxaad sidaasi oo kale dashboardka ka arki kartaa saacadda xawliga gaariga, waxayna saacaddani kuu sheegaysaa xawliga uu ku socdo gaarigaaga. saacaddanina waxay kuu sheegaysaa wareegga matoorka gaariga. halka dhexena waxay kuu sheegaysaa shidaalka iyo cimilada gaariga. heerkulsheegaha wuxuu kuu muujinayaa heerkulka matoorka gaariga. haddii ay muuqato heerkulka gaariga inuu casaan ama guduud yahay, fadlan ha isku kaxaynin gaariga ama baabuurka. macalinka gaariga ku baraya ayaa kuu sharaxaya in badan sida ay u shaqeeyaan leerarkaasi. haddii aad haysato gaari ka duwan midkan waa inaad akhrisaa buugga gaarigaasi.